horumarka magaalada Berbera waxaa laga qiyaasi karaa qaabka ay u socdaan dhismayaasha guryaha iyo goobaha ganacsiga ee cusub. Muuqaaladani waa magaalada oo u sii fidaysa xagga xeeliga badda oo u muuqda in tartan loogu jiro dhulka xeebta sii kulaalaya. Cabdi Cali waa mid ka mid ah injineerada dhismaha ee goobta oo aanu la kulannay. Waxa uu ka warbixinayaa isbeddelka muddooyinkan ee dhinaca dhismayaasha guryaha. meeshu imika si fiican bay u socdaan, kulley imika dadku si fiican bay u dawadaan. qof kastana wuxuu jecel yahay imika ilaa magaaladu xagga badda u dhaqaaqdo oo aan qofna xagga badda laga xigin. Maalgashiga caalamiga ah ee lagu sameeyay marsada Berbera iyo dadaal dheeri ah oo ay wadaan mas'uuliyiinta golaha deegaanka ee degmada ayaa la aaminsan yahay in ay kor u qaadeen kalsoonida shacabka oo qayb ka qaadanaya kobaca dhaqaalaha ee magaalada. maayirka magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamed Ciidin waxa uu sheegayaa in mashaariicda lagu horumariyay magaalada ay ka maalgeliyeen miisaaniyadda dakhligooda oo kaliya, iyadoo kabka degmadu ay ka hesho dawladda dhexe uu 5 meelood ka yar yahay midka degmada Hargeysa, halka 4 meeloodna uu ka yar yahay kabka ay hesho degmada Burco ee gobolka Togdheer. dawladaha hoose dakhliga guud ee loo qabtay kabka la yiraahdo raashiyada degmada Berbera waxay ka qaataa 5%, halka ay degmada Hargeysa 5% qaato, degmada Burco 30% qaato. marka haddaan 5% ka qaato oo waliba 8 degmo loo sii jaro, 8 degmo ka sii farcama degmada Berbera loo jaro, maxaan u oran waayay 5% maxay caasimada u qaatay? waa kabka guud weey, dakhliga kabka guud ee loo qabto MT-ga la yiraahdo. laakiin kastamadu mid Berbera loo xidhay maayo, waa kastamada dalka oo dhan weeyaan. dhinaca kale dadka soo booqday Berbera waxaa ka mid ah Xasan Waraba Cadde oo ka tirsan mas'uuliyiinta wasaaradda ciyaaraha ee Somaliland, waxaana uu sharaxayaa sida ay Berbera ula muuqato. runtii waxa garan kara Berbera nin ka maqnaa sida anigoo kala garan kara isbeddelka weyn ee ku dhacay. waxaan anigu isleeyahay oo aad u soo jeedinaya maadaama dhinaca isboortiga ahay suuqa kala iibsiga maayirada iyo xogayaasha la furo si magaalooyinka ay ku tartamaan loo kala iibsado. Nuruddin Culi Joog, Ariel TV, Berbera.